maamulka Cawqaasha iyo waxgaradka degmada Ceelaf Weyn ayaa kulan isugu yimaadeen waxay kaga hadleen dardargelinta hawsha wadada Ceergaabo adkeynta nabadgelyada iyo ilaalinta deegaanka sida uu ku soo waramayo wariyahayaga nooga soo warama degmada Ceelaf Weyn Cabdiraxmaan Ismaaciil oo warkan nooga soo diray degmadaasi kulankan ballaaran ay maanta isugu yimaadeen maamulka degmada guddiga qaanuurinta wadada Sanaag ee qaybta Ceelaf Weyn iyo Cawqaasha iyo waxgaradka deegaanka Ceelaf Weyn ayaa waxa maanta kulankan oo ka qabsoomay xarunta dawladda hoose ee magaalada Ceelaf Weyn ayaa waxa lagu falanqeynayay sidoo kalena lagu gorfeynayay qodobo dhowr ah kuwaas oo waxtar iyo anfaac ballaaran u noqonaya bulshooyinka iyo guud ahaanba degmada Ceelaf Weyn gudoomiye ku-xigeenka degmada Ceelaf Weyn Salmaan Yuusuf Diiriye Odowa oo markii kulankaasi uu soo gabagaboobay warbaahinta uga warbixiyay qodobada ugu muhiimsan ee kulankaasi lagu falanqeynayay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ah howlka dawladda hoose waxaana shirka ajandihiisu ahaa koow hirgelinta iyo dardargelinta mashruucii wadada ee degmada Ceelaf Weyn laba adkeynta nabadgelyada saddex ilaalinta nabadguurka iyo deegaanka saddex kala qaadashada iyo bixinta magaha beeraha intaas oo qodob ayaanu maanta ku qaadanay waxa lagu soo qaaday qaabkii iyo sidii loo dardargelin lahaa مشروعي وضده دegmada Ceelaf Weyn ay kaga qayb qaadanaysay tii qaranka mooyee degmo ahaan afayeenka guddiga qabanqaabada iyo qaadaan ururinta wadada Sanaag ee qaybta Ceelaf Weyn Axmed Saciid Gudane ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay halka uu la mushaaxayo mashruuca qabanqaabada iyo qaadaan ururinta wadada ee hanti hurka dhismaha wadada Sanaag ee qaybta Ceelaf Weyn runtii maanta waxa shir isugu yimi maamulka degmada Ceelaf Weyn soo qabanqaabiyay maamulka degmada Cawqaasha degmada oo Cawqaal fara badan ay isugu timi iyo waxgaradka kale ee degmada haddana uu qaybtaan ku leenahay aan xoogaa ka taabto wadadu waxaanu ku jirnay shaqadeeda hadeer ilaa muddadii la iclaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu iclaamiyay ilaa iyo maanta hawsheediina waxay maraysaa meel aad u wanaagsan inta degmada Ceelaf Weyn ku lahayd waxay ahayd 20 kiiloomitir 20 kiiloomitir qaab iyo nidaam baan u dejinay lacagteedii sida ay u soo bixi lahayd ee qof waliba qolo waliba uga qayb gali lahayd maanta shirkan aanu isugu nimi oo maamulku hogaaminayo ahaa dardargelinta qaadaan ururinta wadada iyo qodobada kale ay maamulku ka hadleen Cawqaashu door bay ku lahayd doorkii ku lahayd waxa weeye ari lacagta markaan afar meelood u qaybinay meel kamid waxay ahayd ari xoolo nool meelna waxay ahayd qurba joog iyo baanu saarnay hadii leedkeeda ku ruuyahay dadka meelaha dibadaha naga jira qaybna waxaanu saarnay magaalooyinka Ceelaf Weyn iyo tuulooyinkeeda saas tiraadeen qaybta ay ku lahaayeen maanta Cawqaashu oo ahaa in la helo arigii xoolihii noolaa qaybtoodii baanu maanta u gudbinay iyagoo maamulkuna goobjoogka iyagaana markaa qorshahoodii iyo sidii ay u qaybsan lahaayeen iyo sidii ay soo saari lahaayeen dejisanayay marka ay dejinta dhameystaana kulli waxa la isagu iman doonaa shir dambe oo sidii loo ururin lahaa ay ka mid tahay hadda waxaanu haynaa kulli lacag badan baanu ururinay in badanina waa noo socotaa maayarka tuulada Kalshe oo hoos timaada degmada Ceelaf Weyn kana mid ah xubnaha guddiga ayaa waxa uu isaguna dhankiisa tilmaamay inay ka deegaan ahaan iyo sidoo kale deegaanka uu maamulo iyo dhamaanba deegaanada kale ee hoos timaada degmada Ceelaf Weyn in isla waqtigan hawluhu ay meel fiican u marayaan dhawaan insha Allah ay soo dhamaan doonaan hawlaha iyo kharashaadka wajiga koowaad ee ay kaga qayb qaadanayaan wadadaasi maayarka degmada Ceelaf Weyn mudane Baasha Xandulla Warsame oo gabagabadii kulankaasi ka hadlay ayaa isaguna dhankiisa kula dardaarmay qurba joogta joogta ka soo jeeda deegaanka Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag in iyaguna dhankooda si dardar leh ugu dhiiradaan hawlaha shaqo ee ka socda gobolkooda degmadooda iyo dalkooda waa Cabdiraxmaan Ismaaciil ee telefishinka qaranka Soomaaliland Ceelaf